haddii adiga aad isdayacdo oo aad taxadarka ka tagto oo meelo aan munaasib hayn aad gasho adaa markaa isdayacay gaar ahaan gabdhaheenna dumarkeenna dayac badan baa jira aabayeen la'aan badan baa jirta qaar ka mida waxaad arkaysaa saacado dambe oo habeenka ka mida baa waxay marayaan meelo khatar ah xaafado khatar ah waqtiyo dambe keligood iska socdaan meelo ragguba ka baqayaan indha adaygu raggeenna keliya khaas kuma ah laakiin dumarkeennu waa indha adagii indha adaygu waa ka mariyey inay tahriibaan oo ay badaha maraan oo magafo u gacan galaan oo caalamka kale dumarkoodu waxoogaa waa yaro ursan yihin laakiin gabdhaheennu way indha adagii marka makhaadirta meelaha ay gelayaan ragga hubaysan baa lafahooda kala baqa xaafado waxaa jira Nairobi ku yaala oo lama galaay ah oo muxuu ahaay isku raran ah oo markaad ragto dhex maraysa aad baqayso gabadh Soomaaliyeed oo qurux badan oo muxuu ahaay xaragoonaysaaba dhex socotaba walaal sidee gabadha haddii la dafo maxaad ku leeyahay marka waxa weeye dayac baa jira xaafadaha ha noqoto xilliyada qaarkood ha noqoto gabdhaheennu waxaynan xasaasiyad ka qabin oo iska raacayaan tagaasi aynan garanaynin wax wada way iska raacayaan biki waxay raacaysaa oo ay u raacaysaa meelo fogfog oo dadka ka dhex baxsan nin keliya wata taxi aynan garanayn bay keligeed fuulaysaa markaas meel fog u raacaysa soo inuu jiiro la galma yaa ka celinaya saa ay tahay waa gabadh Soomaaliyeed oo qurux u dhalatay marka labaadna make up barsatay oo isqurxisay marka saddexaadna iscadrisay oo udgeysa waay Sooma marka in jiiro lala galo soo iyadu sabab ma ah iyada sabab u ah raggan ay saaran tahay baabuurka la saaran tahay bikida la saaran tahay waa rag shahwa haysa waay waa rag dhanka kale masaakiin oo xoolo inay ka raadiyaan ay suurtagal tahay laakiin dareenka ma qaban gabdhaheenu inta badan dareenka ma qaban waa kan laga kari laayaa warka jooga oo balaayadan aad fuuleysaan iska daay waxaad ku darsataan mujtamaca Kenyaanka ee aan la noolahay in badan oo kamida waxay rumaysan yihiin ruux Soomaaliya markay arkaan inay jeebabka dollar iyo dahab uga buuxo salada qabsada gabdhaha boorsadan yartaa soo maarto oo ay ku ritaan waxay ku shalaystaan iyo waxyaalaha yarka iyo kareemiyada ay ku ritaan boorsada waxay rumaysan yihiin dahab ka buuxo marka eedii oo sideedaba muxuu ahay la tuunsan yahay ayay hadana meelaha isdhigaysa Sooma marka kii hadda ka hor ay dhaheen qoliye kamida Soomaalidu Ilaahay ay caabudaan waa midka lacagta sameeyay dhahan midka lacagta sameeyay caabudaan marka bala ducadii buu Ilaahay inoo aqbalay hadda ka hor waagii ay Soomaalidu soo qaxday oo askartu aad u eriirin jirtay oo ay dadka dhibi jireen ayaa ruuxa Kenyaanka markuu ku shaxaadahay wuxuu ku leeyahay iko shida buu ku leeyahay iko shida Sooma iko shida marka Soomaali waa dad war badan waxay yiraahdeen Ilaahu iyagana shidaha u waay annagana shilin ha noo waay marka bala ducadii baa leeyahay aqbal المهم waxaan ka soo wadaa ujeedadaydu tahay gabdhaha Soomaaliyeedna inay fahmaan loo baahan yahay meelaha makhaatirta iyo xilliyada ay galayaan iyo taksiyada ay raacayaan iyo bikida ay raacayaan iyo waxyaalahaas oo dhan waa dayac gabdhaheenu ay ku jiraan oo ay adag tahay in laga karo waan arrin wacyi gali badan u baahan wadanka waa la gaajaysan yahay وانا halis waxa kamida qodobada loo baahan yahay in la qaato markay xaaladahan oo kala soo baxaan in qayb laga noqdo
sidii loola dagaalami lahaa shabakaadka noocaas oo kale ah ee dadka dhibaatada u geysanaya wax afduubay waad ogtihiinoo corona sidoo u dhacay dhaqaalihii wadanka wax badan baa burburay Soomaa waliba dabaqada hoose iyo bulshada qaybaheeda hoose ee fuqarada ah way u sii nugul yihiin hoos u dhaca dhaqaale wadanka ku dhacay sidaas oo kale markay dhacdo in badan oo dadka kamida si ay nolosha u ta'miiniyaan waxa marka shaytaan ka dhaadhicinaya wax afduubo shabakaad baa sameysmaya sida wax ku raadiya markastoo gaajadu badatana daahiradaasi aad bay u soo baxdaa طيب waxa kale iyada ma soo baxdaa sidoo kale marka doorashadu soo dhowdahay oo kale oo dhaqaale la doonayo in muxuu ahay la sameeyo waxa asbaabta kamida keenta oo muxuu ahay dawaaficda kamida muxuu ahay munaafasaadka siyaasiga oo qoliyahan siyaasadda isku hayay siyaasadda ku tartama ayaguna waxay isu dabaraan inay si hoose isu kharijiyaan way dhacdaa iyadana oo muxuu ahay munaafiska kula tartamay ama ragga wada isaga kuwada muhiimka in si hoose loo kharijiyo iyadana way dhacdaa asbaab siyaasi way markaas ayaa keenta macnaha waxa kale asbaabta kamida oo keenta waxa loo yaqaano asbaab shahwaaniya yani afduubka waxa keena asbaab ku saabsan cid ujeedadiisu ay tahay inuu shahwo guto inta badan qaybta waxay ku dhacdaa dumarka daxiyada inta badan dhibanayaasha ku gala waxa kamid dumarka weeyaan macnaha oo waxa dhacaysa in ama gabadhii ama haweeneydii loo afduubto calashaani in shahwo laga guto oo la kufsado oo la faraxumeeyo iyaduna way dhacdaa oo marka laga yaabo in ama sida lagu soo daayo markii laga danguto ama ay dhici karayso si aynan sir u bixinin in marka la kharijiyo ujeedadu marka ujeeda maali ama dhaqaalana ma aha siyaasadna ma aha laakiin wax weeyaan uun shahwo ka guda waay ama shahwo ku guda waay ayaduna way dhacdaa tobadana dumarka ku dhacdaa inahaas waxa la dhihi karaa waa asbaabta keenta dhaqaalaha noqoto madax furashaha noqoto siyaasad ha noqoto amni ha noqoto asbaabahaas inta badan ayaa sabab u ah shabakada marka waxa hormuud oo anaga kalsooni galiyay gabadh Soomaaliya oo say u labisantay hadaad aragto waliga aadan dhahaynba tana balaayadan ka shaqeysaba ayaa la socota marka anaga waxa naga dhaadhacday masaakiin baa iska ahayne gabadh Soomaaliyeed baa intay idin shirqoosh bayniman idin shirqooli marnaba naguma soo dhacay bas heshiiskii waa la saxiixayaa baa la yiri lacagta soo qaada lawyer-kii toonkaana lagu ballamiyay markaan meeshii tagnay lacagtiina aan wadno ayaa la heshiis baa la ahaay lacagtiina laga qaaday baa dhinacyaha laga dusay annagoo meel bannaan taageer baan isarag ami galabnimo way qorxa sargaabada waa Nairobi markaas waxaan bilownay inaan lafahanaga la fakano war lacag iyo xoolo ma jiraan ma la feerayaa leena diline in carsi arbangal barnaamijka waxa ka shaqeysay oo isku xidhay gabadh Soomaali ah waa 20 sano taqriiban ka hor way ku dhowday marka gabdho Soomaaliyeed baa qayb ka ah wiilal Soomaaliyeed baa qayb ka ah barnaamijyadan shabakadahan qayb ka ah waxaan ula jeedaa marka macluumaadka idin siinaya Soomaali way hagu kalsoonaanina